ayaan waxaan u dhaqaaqnay hooygii u yaalay meedka marxuuma deeqa oo ku yaalay agagaarka wadada warshadaha waxaana loo qaaday marxuumada meedkeeda halkii qabrigeeda uu ka qodnaa oo ahaa degmada Daynila duleedkeeda ee gobolka Banaadir aasa kadib ayaan waxaan la kulmay hooyada dhashay deeqa daahir cagadahab oo xilligaas xaaladeedu aan ahayn mid la qiyaasi karo iyo waliba daada ka weynay deeqa iyadana oo xilligaasi aad u ilmeynaysay waxay iga warbixiyeen dareenkooda ee cidda dishay deeqa daahir cige iyagoo ka codsaday dawladda Soomaaliya in cadaaladda la horkeeno hooyada ayaan ahay waxaana hooyo Safiya Maxamed Xoosho magac wax ma sheegi kari isuga marka dareenkayga soo yahay ilaa hada maana saacan sidii waardi ama halna soo jeeday marka alxamdulillah saqiir aqar Allah iga dhigo gacan ka xaq daran ayaa iga dishay marka waxaan rajaynayaa in Ilaahay ii soo qabto gacan waxaan idinla sheego maadaama ka soo sheego waaye marka anoo xaaladeeda culus tahay oo qaawanaha dhafaysan ayaan ilaa saybiyaan ilaa digfeer orod ku tagay marka aniga saan ahma ogeey dareenkayga waxaan codsanayaa in ilaa horkeen ninkaas gabadheeda dilay maskaxda bajiyay cadaaladda deeqa daahir cali walaasheed ka weyn deeqa si alxamdulillah waa askari u dilay xabadana gadaal ugu soo dhuftay dawladda waxaa ku codsanaynaa inay sharci islaamka ninkaas noo keenaan weliba wixii sharciga qabo noola mari deeqa si alxamdulillah u dhimato maskaxda xabadda ugu dhacday isheed dhan banaanka eed cabdali wooso saad gurigoo jooga cunuga dhan ogaal ma lahan deeqoo socotaa kasoo kor dhacday wuxuu dhahay gabar islaameed xabadda ku dhacay deeqa ma u malay deeqada waa carartooyin anagoo raadiyeena isbitaalka waxaana la dhahay waxaaba deeqo marka dawladda waxaa ku codsanaynaa si degdeg ah inay noogu soo jawaabaan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta dhalay ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala gobolka Banaadir waxayna sheegtay in dhibaato xoogan ay ku qabaan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo waliba xirnaanshaha wadooyinka iyadoo dawladda Soomaaliya ka codsatay in loo baahan yahay in xil xoogan iska saaraan ardayda wax ku barata gobolka Banaadir wala yartaan ilmaha isku basii raaci jireen inuu samir iimaan Ilaahay naga siiyo midda kale boqol jeer waxa dhacay maalintii in la dhaho jidka uu xiran yahay waa soo baxaa bajaajan soo qaataa waay uu jidka u xiran yahay baskan baskii hooyo xamar inuu yahay oo iskoolay ay tahay oo saaka gurigooda aan ka soo quracanin waa loo jeedaa ciidanka way u jeedaan ma sii dayn karaan ma sii daynayaan way haysanayaan ilaa aniga aan soo dego bajaaj aan soo qaato ilmahayga aan kala soo baxo noloshaas nolol oo geeridaaba dhaantaba ma fahamtay marka aan noloshaan nolol aan ku jiri karna maahan waxaan ka codsanaa iskoolka hooyga axmed keliya ma ahan ardayda Soomaaliyeed oo Muqdisho ku dhibaataysan in dhibaatada dadkan oo ilmahooda fogeysteen oo meelaha amniga geysteen oo ilmahan masaakiinta ah iyo waalidiintan wada xanuunsan oo dhikarka wax walba sokorta qaba in macnaha nafsadoodii ilmahooda loo badbaadiyo cid ma diidaysa malahan waxa waaye naf walba saacad leedahay laakiin cunugaagi xabad in madaxa looga dhufto maskaxdiisi laga baabuurka laga soo kar guro hadana wax xuquuqa meel loo saarneen oo la dhaho ma naqaan wax dilay waxaas wax soconay ma noqon in ninkaas anaga loo gacantana loo soo geliyo cadaaladda amarsiino iyo ama iskaga guurno magaalada anaga aan qaxootiyaasha iska amniga nabad aan u doonano wax ka dhaxeeyo malahan